كتاب أصدق أوليه هاي وليلاد إضاءات أما أضواء على التحاكم إلى غير معها على قضية التحاكم. وذلك عبد الرحمن وقوليها إلهي كسبت باديوي قولي خوارجتي أسبوعا كصبحي وانه المام شيخ عبد الرحمن بالليل هذا مركا لبا أسبوع إن لا جوغا إلهي با كبت باديو قوليه كلمتي هذا كور بركينا ضبستين معها إشكاليات في تكفير المجتمعات iyo shukr mustafa dadkii Allah ilaahay ku anfacay buu ku jira wax ku dareemay ilaahayna ka soo noqdo. Hada markuu yimidna dhowr goor baan fadhiisanay waxyaabo dhimanaa baan isla dhamaynay marka waa dhamaatay waa faanteen baan u malay. Allah idin barakeeyo ilaahay khayrkaana tusaxaqana nagu sugo. kuwan meesha u fadhiyay iyo ii sheeg meesha maxay ahayd ay lahaayeen Olympic iyo way ganacsadaan waa niman shilinka aad u raadiya. waxaa la ii sheegay xataa Kismaayo kale dekada dhuxusha ninka ka dhoofiya waa nin takfiirad ninka looma ogolo. dhuxusha ninka geedaha jaree dhoofiya ka macaasha Soomaalida kale ma joogto xataa looma asaga kaliya yaa haysta ii sheeg muxuu ahaa magacii baad tiraadeen Saalax Daawud baa la yiraahdaa waa taqaanaan takfiirka aad fiicantii. المهم niman ganacsada weeye kuwa Nairobi jooga loo yaray leeyihiin maxkamadaha marka shay lagu qabsado way tagaan idinkana way idin xiirahayaan la socda hadda. لأحمد وبه الفتاوى والعلوم وبه شيوخا كالنجوم هذا القناة لأحمد وبه الفتاوى والعلوم. xalay waxaan soo sheegnay ama ka shanqarinay haddii loo bandhigo ra'yiga uu qabo sheekha qolyahan qulaada ah Maxamuud Nuur Cusmaan in la takfiirin karo haddii loo bandhigo wadaadaha qaarkood waxay siday qabaan usuushooda lagu xukumo. midna asagu wayba caddahay haddii aan wax kale lagu badbaadinin. marka jamaacada waxaan oran lahaa wadaadka aad daba taagantihiin nin walba horta wax idinka sheega ama wax idin sheega ma aha cadowgiina wanaag mudin la doonaya dad islaan sheeganaya oo wanaag doona oo khayr doona inaad tihiin baa laga yaabaa. marka nasiixooyinka iyo talooyinka la idin siinayo wanaag iyo niisama ku qaata. xanaanta iyo qallacaadu waxa weeye danba idin tahay. wuxuu yidhi lacalla catbaka maxmuudun cawaaqibuhu warubama saxat alajsaamu bilcilali. marka ma ahan canaan walba in lagugu baabi'ino lagugu dilaayo ma ahe waxaa weeye ha hagaagaa ruuxa la leeyahay. marka taa niyeysama ku qaata wadaadkaa daba taagantihiinna iska hubiya inuu asagu muslim yahay iska hubsada marka koobaad. labo ummaddan aad ku xadgudbaysaan ilaahay oga cabsada. haddaynu tilmaanno qodobaha wadaadkaasi loo cuskan karo in xerada laga saaro binaa'an calaa madhabi bacdi alculamaa waa ilaa 6 qodob ama 5 qodob aan gaadhsiiyo. midka koobaad waxaa weeye kharq alijmaac addaruuri. ijmaac daruuri ah ayuu ninkaa khilaafay oo kharqiyo dilaaciyey. ijmaaca daruuriga ninka khilaafana waa kaafir calaa madhabi ahli اlcilm bal wadaaddaa waxay khilaafba kuma jiro. man kharaqa wakhaalafa alijmaac adaruuriya waa maxay inuu kaafir yahay murtad yahay muranba ma laha wadaaddaa yidhaahda. xaggee buu ka khilaafay ijmaaca daruuriga? wuxuu ka khilaafay ijmaaca daruuriga kutubtiisa wuxuu ku caddeeyey ninka yidhahda laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah shahaadaynka ku hadla si saxan oogu hadla kuna dhawaaqa walow kaafiran mushrik ba ha noqdo fii xaali xarbi loo xukumi maayo islaamnimo. looma xukumayo inuu ku hadlay oo ay shahaataynka uu la yimid cala alwajhi saxiix oo la yimid loogu xukumi maayo inuu muslim yahay ilaa la hubsado oo la baadho oo la imtixaano imtixaanka kadibna la ogaado inuu gaal yahay inuu muslim yahay. xalayna waxaynu soo maray
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وإجماع سوغوري وحين صوم الري ابن رجب الحنبلي أوجدي ومن معلوم بالدين بالضرورة وحين صوم الري إجماع الصحابة على ذلك وحين صوم الري كتابك يا حديث مسألة كيمت مركا قضبك أساق والله عسكن كرا وذات كإن لغو تكفيري وادفانتين بانمالين بل مدى أيضا وذا داب سوغوري إنك سيدا يلا خلاف إجماع دورك من مسلم هاي قضبك اللبات وحاول خرقه لإجماع المسلمين في نفي الحكم بالإسلام بالإمارات أمارات كي أستامضة إسلام نمضة إن الله عسكنين روح مركا الله حكومة إسلام نمو أي نودي دو الضفرة روحي هديني كشهاتين كسود دي وحد كسوغيسان أستاني أمارات إسلام وحكومة حكومة أماراتك إيا أستامها إسلامك عاوان شيء دون فقاد إلى 5 إلى 6 أما بيك جارسيان أمارات الإسلام على إمتى أما علامات كالروح اللي قرطين مسلمية مركاسي ونسقوا وركيس عدي سنين مركا وحود ديدي وصن أقالين إن روحا قال لما كم وقن أصو قال لما أصن كو أقيد وحكم إسلام نمو وحكمه أستاني علامات كم وقتدرت تاسنا وإجماع بالسوغوري أيضنا إن روح الله حكم إسلام نمدا أستامها هي علامتها كم وقده خارق الإجماع الضروري كافر وي خارج الإجماع الظننا على رأي الجمهور وكافر مخالف الإجماع الظني جمهور المسلمين أي كتة ننك الدلاعية خلافنا وكافر على جمهور أهل العلم مذهب كذا أدين قبسون على مذهب جمهور أهل العلم أدين قبسون لكن شروط الله فيرين باجت خلاف كيسيه ولي زاد مسي قليه لبا قضب هاي سام بنو ملايدي قضب كصدحات أمضى دنيا تشوكت مسلم كا محمود عثمان لبا قضب بكو تكفيرية لبا قضب كتبتي زور إلى 10 كتاب بان أخري وحي دمان مركان دميانا مركا لين اسكو سو نقون دونا إن شاء الله تعالى 10 كتاب أخري وحكود الوريقة يا لبا قضب كوبات تحكيم القانون الوضعية قانون يدستور با وضمضة لغو حكومة دولدي حكومة كحكومته شعب كن وهوس هجانا يا كيكو حكومي يا شعب كهوس كل وقالوا إلى هذا قضب كلباتنا وحيد هذا أنك موحدين تنا الله دقال لمان لبعض قضب وضد كورن كو تكفيرية لقبل الله بالرأس عصير إلى بوسنيا أما جاكرتا هذا يكون تعالى دوني واحد شو قدام حوليه دتك أهل التوحيد كأنك أو التوحيد كموتشني بي خوارج نقول شيئان وإن الله دقال لمان وإن الضبقلان نينكي موحد دبنا وكافر أنا نينكي دبنا وكافر بو خلاصة وإنت معنا هذا كان كهاللية إيوه دنيا وحلو حكومة قوانين إيوه دساتير شعب كنا وهو سجنيا شعبك يكحكومة وقالوا لا بدأ قضب عسكرة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أيوه أصدقنا دور قرقب بريق ذي قضب كصدق حدنا وحوجي حاكمك مسلم كا هدو جور يظلم عدالة در حكومة في قضية جزئية كافر معها بل هو مسلم هذا الكيسان أخريه إن الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله قد يرتكب إثما في قضية من القضايا فيحابي أحدا لقرابته أو لكونه ارتشى منه أو يرجو أن تحصل له منفعة دنيوية من جانبه فيميل عن العدل لذلك فهو وإن خالف الشريعة وحكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية الجزئية إلا أنه لا يحكم بكفره لسببين وركي سوي وحبوشك شيء أنا معنا الهاي محوش لو إذن شيء نينك أزقا وحويدين شيء قاضي فدي محكمات ده هذا لبنه مسلم أصو حقن تمام أو كدي من إنه كقول يحوي لا لوش وكقاته أما إن هذا نما وأجا أحده
kadibna dulmigii xaqdarraduu sameeyey uu shareecada u tiiriyo ila sharci buu xukumahayaa ka laga xukumay muxuu aaminsan yahay qaadigan sharci buu kugu xukumay sharcigii baana sidan kuu galay weeye ilaahu waa iska sabrahaya cala ara'si wasalaama inamaa kaana qawla almu'miniin idaa ducuu ila allahi warasuuli yaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa buu taagan yahay waulaa'ika hum almuflixuun jawrkiisii iyo dulmigiisii iyo eexadiisii buu qaadigan u tiiriyey ilaa shariicati rabbi alcaalamiin muslimkii miskiinkaas soo taxaakumay ee layidhi haddaad u taxaakumi weyda shareecada iyo qudaadda aada weydana kaafir baa tahay la yidhi meeshii buu yimid waa iskeenay waa lagu qulluuciyey waxaa lagu xukumay xukum shaydaan baa la saaray so xukum shaydaan lama saarin ninka xukum shaydaan saaray buu leeyahay maxamudul cusman waa muslim ninkaasi mushriga ama kaafirka calaa daahiri kitaab illaah wa calaa ijmaaci salafi alumma oo saxaabadan oga jeedna khilaafna kama sugna saxaabada qadiyadda ayada inay kufri tahay warka ibnu cabbaas laga sheegana hadda ka hor baynu isku daalaan u malaynaya iguma soo celin kartaan ninkaasuu muslim ku xukumaya dadkana wuxuu ku yidhaahdaa kuwaani dadka ma takfirin waman lam yukafir alkaafira fahuwa kaafirun calaa iطlaaqihi lilqaacida wasiidda ya qaacidada marka hadda waxaan leeyahay maxamuud cusman wuxuu takfiirin waaye mushrik xaakim bikayri maa anzala allah asagu marka xukunkiisu muxuu yahay kaafir waxaad ummaddu ku haysatay wey nacnacay kala saari mayso wadaad baa qabi abadan wadaaddu islaamku wuxuu qabo o dhan baad naga diidda wadaad baa qabay hebel baa yidhi ma socorayso lianna islaamku wuxuu qabay iyo ijmaacaadkii daruuriga ahaa iyo kii saxaabada iyo kii ummaddoo dhan baaba diidan tahay marka eedaday baa tiri iyo hebel baa yidhi makaa dhegaysanayo kitaabka ilaahay baa yidhi cinda kitaabillahi nin kaafiraad islaam ku caamisay maxaa tahay man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir qodobka inaad fahanteen baan u malay qodobka afraad wuxuu yidhi xugum waaxid hal xugum ninkii bedela ama dhowr xugum oo mucayan ah kaafir ma aha laakiin shareecadoo dhan ninkii bedela ama qaanuun tejista kaafir ah waa aafo cusub xataa ma qabaan jufaaddu hataa ma qabaan jufaaddaa dhaanta ninkii tawxiidka bandiradiisa watay ee ummaddoo dhan doonta ka tuurahaya ee nibiriga u wada tuuraya dadka ee keligii marabka kaxaysanayey hadda wuxuu taagan yahay warkiisa idiin akhriyo waxaa un kufri ah takhyiirka axkaamta cala alcumuum baa hadalkiisa ka muuqda wuxuu weliba kaloo qariray caqiidadii jahmiyadoo wuxuu shardiyey istixlaal warkiisa idinku dul akhriyo wuxuu yidhi walxaakim alladii yastaxillu ma maqlaysaa والحاكم الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله هو الطاغوت الذي يتحدث عنه القرآن ويأمر بالكفر به واجتنابه حاكم كبرنيستي إلهي حكم كيس حكم عن كائن وحكو حكمه متكاوي طاغوت كقرآن كو أمري إن لغو كفرية لغانا ديراده مفهوم كمخالفة هذا الكوام محي ilaahay xukumkiisa xukma ummadda ku xukumahayo diin ooga dhiga laakiin aan bannaysanin waa maxay waa muslim taaquudna maaha qur-aankuna kama hadlin ka fogadana nama dhihin wuu sii wada hadal dheer waxaa iga khuseeya wuxuu ihi waa macluuman ana tawaaqiita albashariya fi hada alcasri laa yugayiruuna xukman waaxidan aw axkaaman mucayanatan min axkaami shariicati illah wainamaa hum yactaqiduuna ana atashriica yatatawar مع مرور الزمن ويرون من السفاهة تقيد بأحكام كانت تعمل قبل 14 قرنا فأنتم وركز محوك لقاضي نينك بدل حكم معينة أما أحكام معينة من شريعة الله ينينك آمن سن كتابك القرآن كما بشقين كري حق إنك جيو بين الكودي وحينو كنتان دستور كان ضمبوا كافر كهرنا مسلم القرآن كنا كما هلين نينك مغير لحكم الله ولأحكام معينة محو حكمها يا هذا الكيزن ظاهر كيسونو ياهي مسلم هذا كافر كان نين كان تكفير محاد كليدي وركان حتى قابك أوليته وحونا كحرو كلي يستحل استحلال وعقيدة الجهمية جهميون في هذا الباب كفروي عند أهل العلم سلفكوا وي تكفيريين
waxyaabaha afcaasha iyo aqwaasha kufri lidaatiha ah ninkii istixlaal u xawila ee istixlaal u celiya waa jahmi waljahmiyatu fi hada albaabna waa kafaratu cinda ahli ilcilm maxamuud nuur cusmaan marka wuxuu ku jiraa baabkii tajahumka waa ku jiraa wuxuu kaloo ku jiraa man gayara الsharaa'ica shariicatan aw xukman aw axkaama mucayana falaysa bitaaquutin walaa kaafir ninka kalena waa taaquut asagii baa marka kufri cad nin ku dhacay oon muranba ka taagnayn marka hoos loo dego ayuu islaam ku caamiyey maxaan leenahay haddaba man lam yukafir almushrika fahuwa kaafirun mushrik taa inaad fahanteen baan u malaynaya midda labaad wuuna takdiibiyey qur-aankii waa mukadib weli kitaabka ma helin kitaab asagu uu leeyahay oo la yidhaahdo idaa'aat ama adwaac cala ataxaakumi ilaa hayri muxuu ahaa calaa qadiyati ataxaakum wadaadka cabdiraxmaan oo qolyaha ilahay ka soo badbaadiyo weeye qolyihii khawaarijta ee usbuucan ka soo baxay waan hilmaamay sheekh cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa marka laba usbuuc ma usbuuc idinla joogaa ilaahay baa ka badbaadiyey qolyihii kelimadii hadda ka hor dad barhkiin aad dhibsateen ee muxuu ah ishkaaliyaad ee fii takfiir almujtamacaat iyo shukr mustafa dadkii allah ilaahay ku anfacay buu ku jiraa ee wax ku dareemay ilaahayna ka soo noqdo hadda markuu yimidna dhowr goor baan fadhiisannay waxyaaba dhadhimanaa baan isla dhammaynay marka waa dhammaatay waa fahanteen baan u malay allah idin barakeeyo ilaahay khayrkaana tusa xaqana nagu sugo kitaabka asaga adwaa fii qadiyati taxaakum la yidhaahdo waxaa layga sheegay weli kitaabka ma helin inuu qabo haddaad maxkamad islaam weydi iyo adoo ganacsada ilaa iyagoo dhan baa ganacsada soo ma taqaanaan kuwan meesha u fadhiya iyo ii sheeg meeshu maxay ahayd ay lahaayeen olombic iyo way ganacsadaan waa niman shilinka aad u raadiya waxaa lai sheegay xataa kismaayo kale dekedda dhuxusha ninka ka dhoofiya waa nin takfiira nin kale looma ogolo dhuxusha ninka geedaha jaree dhoofiya ka macaasha soomaalida kale ma joogto xataa looma asaga keliya baa yaa haysta ii sheeg muxuu ahaa magacii baad tidhahdeen saalax daawud baa la yidhahdaa waaba taqaanaan takfiirka waad fiican tihiin almuhim niman ganacsada weeye kuwa nairobi jooga looyaray leeyihiin maxkamadaha marka shay yar lagu qabsado way tagaan idinkana waa idiin xiirahayaan la socda hadda kitaabka wuxuu ku qarriyaa la yidhi inay bannaan tahay ataxaakum ila atawaaqiiti cinda adaruura wadaaddaa qaba dambe mucaasiriina hadda ka horna waa ka hadla hawsha ayada ah ilaahayna wuxuu yidhi alam tara ila yazcumuuna falaa warabbika am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun qur-aanku hawshaa meeshuu ka taagay waad ogtihiin waa war gaalo weeye warka asaga warkaasi war gaalo weeye kitaabaan kitaabka alla ka ahayna loo xuguntamo daruuraday dooniba ha keentee mar hadduusan wuxuu ikraha gaadhsiisanayn war islaan ma aha wadaadka yidhi ama u cudurdaara ama u xaabiya idinka idiin taallaa kitaabka sidaasuu ku yidhi halkanna way ka muuqataa ila muxuu ku yugayiru xukman waaxidan axkaam mucayana way isdondoonanaysaa alladii yastaxillu howlahaasaa iskan keenay waad fahanteen bay ila tahay qodobka shanaad ijmaac kaluu dilaaciyo afraad mise saddexaad oo ah aafo aqoon darrada meesha ka jirta saasuu iskaga daba wareeganaya wadaadku mid ilaahay khayrkii kitaabkiisa waxaan wax ku xukumay buu hadda lahaa muslim weeye xaakim muslim oo ijtihaaday oo gafayna wuxuu leeyahay waa faasiq saaxiibu kabiira ah alxaakim almukhti fi ijtihaadihi wuxuu xukumayaa inuu yahay faasiq saaxiibu kabiira adaalim ah culummadu waxay ku ijmaaceen ilaahay xukumkii xukmaa ninkii rida u rida calaa khata'in wa jahaalatin wa sahwan wa ghalatin inuusan kaafir ahayn walaa faasiq ninka la takfireen la gaalaynayo waa ninka garanaya ilaahay inuu yidhi sidan yidhi xukunka yidhi asna uu garan maray wuu og yahay zaanigu xadkiisu inuu rajmi yahay matalan markaasuu wuxuu yidhi waxaan xukumay 6 bilood oo xadhiga iyo 20 karbaash iyo 100 kun oo ganaaxa idan ninka maxaa loo yaqaanaa
وكافر مكذب لكتاب الله مشرع من دون الله ninkii buu wuxuu leeyahay waxa kaas mooyeen ka khaldamay gaf iyo aqoon darro iyo ijtihaad meel dhigay baa faasiq ah hadalkiisa la dhageysta kitaabkiisa manhajul haraka leeyahay duruus fi manhajul haraka duruus fi manhajul haraka safxada 136 wuxuu ku leeyahay amma al-hakim al-muslim alladhi yahkum bima anzala Allah ولا يعتقد شريعة مخالفة لشريعة الله وفرصتي وروي ولا يعتقد استحلالك بويدين وذا ودي ولي إذا جار في قضية بين اثنين فحاب أحدهما وظلم الآخر انت دم له فحاب أحدهم وظلم الآخر ومحيواتي وأقول له هدوسا كافر باهين نكاس إلا تفسيق دم له محوك دري أو عاقب أحدا بشبهة أو ظن نينك شبهته أي هايزو حكم كهاد قرآن وزويل وحاكم مسلم يحكم بما أنزل الله ولا يعتق شريعة مخالفة لشريعة الله سو مسلم دوا ما هو مجتهدا كدبنا شبهة قاضي حكم بوردي ظن بو سك الحق بو سك الأوقاتي حكم كبو خلطي نبغى نحكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران هدو قفنه فله أجر واحد ننكي اللي قوة إن ثوابي أجر لسيمحو يدي لقيس وركيس فهو آثم ظالم مرتكم للكبيرة ولا يخرج من الملة حتى يستحل ذلك ولا يخرج من الملة حتى يستحل ذلك ويتخذه شريعة مقدمة على شريعة الله ما حد كسو جيسان جهمي جيسواوين وماشى فرديو ننكو مرة وامحي مركز كل على محناقنا محكوليه كل جن قالت أنا لقى مويه علماء وحيكو إجماعان نين كان نوع عاص شبهة يظن خطأ كوجفي ليس بكافر ولا فاسق بل هو مأجور أجرا واحدا مسلمين تجمع عدنا واخر قيمة غير إجماع مسود اللعي إجماع ضروري في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عدم الاعتبار بالأمارات الإسلامية إيوه كان هذا آن مرينا صدح إجماعنا واد اللعي ماذا فرضنا وانكين دونا لبك لو حين صوم الري كصاب سن العقم بغير ما أنزل الله متك الشنات متك اللحاد هو متك اللحاد إجماع ود اللعية إجماعات كود اللعية كمدة مسائل كما كان لقى في رواكي اللحاد قضباء إنه كويس إنه مركز لقى إجماعات كود اللعية واكي أفراد وصيدا ما كافراد وحوي وحود اللاعي روح أي علامات إسلام كم وقت إن دار للراعي حكم كيد وخرق لإجماع المسلمين أما أستان قال لما هتي كام وقت أما مد إسلام لما كام وقت بلد كيوضن كأجوك تلقوا مرة عين كرو بالإجماع أذيك وحا كام وقته أيا كحق بدن وحول با متى مسماه هذا يدينكم محاجوكتان كينيا كتلية ما قال كتلي سمس مسلمين با كتلية قال كتلي دوك ما قالتين ويدينك سوي دوك في العاده روحه وحا كم وقته أيا كحق بدن وحول با أسوق حقوق با روح الإسلام ما أي كم وقته إلا راعيه دارته ودار كفر فهو كافر ورواك روح تكن يسومي الصلاة أسجى أطال فهو كافر إجماع عاصنا عاوة إن نسوق جوريان سكود إن شاء الله تعالى مسألة التضباط يجهل يسكتوا سيسان شن تاسي وشن قضب عفوا لحدا سوى لح قضب وكتوا سيسا وحيابها دي الله قد قضبرنا ويبعضها هاي اللي تكفيرين كرو مركب ودات كد إمامك كردجان إنسان dib oogu noqday iimaankiisii islaamnimadiisa ummaduna haydin ka badbaado qodobka lixaad ee jahliga toddobaad ee jahligiisa ku tusay waxa weey wuxuu yiri khilaafka u dhaxeeya bayna salaf salih wa bayna al-murji'a wa khilaaf macna darra ay khilaaf lafzi wuxuu waa khilaaf lafdi maxaa looga jeedaa waa khilaaf macna darra weey salaf kitaabiinti أتباع التابعين إلى يوم أصحاب الحديث وحكو حكمي نمان معنا دركوها الله أمدنا كد المياه مرجئة الفقهاء سلفكو حيكي استغن مال أذك
barkood waxay yiraahdeen waa yuhuudul qibla murji'adu waxay dhan waa yuhuudul qibla saciid ibn jubayr waad garanaysaan ibraahim an-nakha'i wuxuu yiri fitnatul murji'a ashaddu 'ala al-umma min fitnatil azariqa khawaarijta iyo murji'a ummadda ooga daran tarakat al-murji'atu ad-din ka thawb sabiriyyin soo gaabi salafku qaybaaba takfiiriye murji'ada ابن بطة سوغوري إجماع السلف الصالح على كفرهم كفر المرجئة وحسوغوري أجر في الشريعة على كفرهم عن أصحاب الحديث بكسوغوري وحا تكفيري كتاب كمرتين ترمذي أبو مصعب الزهري أما أحمد بن بكر الزهري شيخ المدينة بعد مالك شيخ دار الهجرة ومن شيوخ الستة من رجال الستة قرن عنك وهو تكفيري جماعة وكيع باللوتيريا عبد الله بن زبير الحميدي باللوتيريا جماعة من السلف باللوتيريا من بطية آجرنا وحيسو قوريين إجماع عن حسب الحديث كسو قوريين بقى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وحيسو قوريين أصحاب الحديث يسكو خلافا في تكفير المرجئة هل كان السلف كمسألة كتان وحول خلاف كن هو معي وخلاف معنى الضراء مسألة الأسماء والأحكام ودقيقة مسألة الإيمان ومسألة علوسة نينك هلكا كتاغان نينك دبتاغان إمام كدغان هايو ميشو تغيو أساقي آخر أوتالا انت أنا كغطو وداد كاس وركيسي هوليس